وحويان سومالي هدان نهاي mid quraata ayaan isku nahay sida hal qof oo kaliya adeeru maxaad noo kala yeeranaysaa beeshayada oo kaliya ayaa 100 jufo ka badan waa runta oo xubnaha qofka bini'aadmiga yiba sida si lamida ayuu kala magacyo duwan yihiin madax il luxam qabayladuna waa noocaas oo kale waa sax laakiin waynu kala fakir duwanahay waa run oo xubnaha qofka bini'aadmiga iyaga oo ku wada yaala ay haddana kala fikir duwan yihiin sida uu bini'aadmigu u kala fikir duwan yahay tusaale labada lugood hal qof bay ku wada yaalaan haddana way ku kala fikir duwan yihiin dhaqaaqa markay mid dhaqaaqdo si loo gaaro halkii la doonayay tan kale ayaa qofka sii haysa si tan kalena loogu tiigsado halkii la doonayay dadkuna waa nooca Soomaali haddana sidaan baynu kala fikir duwanahay marba midba hogaanka qabanaya kan kalena wuu sii haynaya walle ninkan sidoo wax u macneeyay waxba ayaga baxay haddii xubno jirkeyga ay midiba magac gaar ah leedahay talow aniga kuma nahay ma sankaanahay ma ishaanahay ma dhegtaanahay ma afkaanahay ma calooshaanahay ma feerahaanahay ma gacmahaanahay ma lugahaan talow aniga taanahay midkeenahay mudane adoon isku wareerin waxa tahay inta xumaha iyo samaha kala aqoon og ee uu hogaanka u yahay madaxa dhammaanteena waxaanu isku nahay mid